nabi yuusuf calayhi salaam qisadiisa waxaan ka baranaynaa in si walbo daruufaha ay u adag yihiin in aanan isdhiibin. waxaan kaloo ka baranaynaa si kasta oo albaabada u xirxirmaan in aanan isbedelin, sababtoo ah nabi yuusuf markii loo soo galay ee la yiri labada nimood waxay ku dhaheen waxaan ku arkay inaad tahay qof wanaagsan, isma bedelin. si kastoo duruufaha ay nagu adag yihiin waa in aanan isbedel sameynin, weliba isbedelkaas oo xun, macnaha inaan isbedelin, inaan ilaahay ka fogaanin, in sida u arkeeno mustaqbalka sida u arkeeno in uusan noqonin koofiyada madow inaan xirnin. waxaa jirto waxa la dhaho koofiyada madow. buugata kore waxaan ka akhriyay lahayo magaciisa ma xasuusta, laakiin wuxuu ka hadlay waxaa jirto 6 fikradood. mararka qaar ma aragtay inaa quus meesha aragtid inaa quusinaysa ma aragtay. wuxuu dhahay qoraal, wuxuu leeyahay qoraaga magaciisa iyo buugga midna ma xasuusta, laakiin waxaan xasuustaa xogtii yareed ee ku qorneed. wuxuu leeyahay buugga hal dhoof ma si fiican ma xasuusto, hal door inuu ahaa baan maleynayaa. wuxuu leeyahay mararka qaar aad ka fikiraysid quustale waxaa ku xiran koofiyada madow. marka macnaha markaa fikiraysid waxaa xirata koofiyada, fikirka qaybta koofiyada madow ku xiran uu leeyahay. marka koofiyada madow muusa xiraneyn. sidoo kale nabi yuusuf waxaan ka baranaynaa markii uu labadii xabsiga la gashay wuxuu u guday danahooda. markuu danahooda u guday wuxuu ku dhahay markaa tagtid iga ag xus boqorkaada. ninkii waa iska iloobay. kadib markuu nabi yuusuf boqor noqday muxuu sameeyey? walaaladii kama argudan. sidoo kale ma uusan xumeyn xaaskii qabri gelisay, xabsiga gelisay, waxaas dhan. marka waxaan ka baranaynaa nabi yuusuf cashar weyn buu na siiyey. in waxaan ka baranaynaa rajada si walba albaabada mar walba nolosha albaabada is soo xirxiraan, albaab walba markuu soo xiro rajo walba aan lahayn ay dunto, waa markaas markii ugu dhowdahay albaabkii ugu weynaa ee sugay noloshan inuu noo furmo. waxaan kaloo ka baranaynaa in aanan isbedelin, oo weliba isbedel dhanka xumaanta inaan qalafsanaanin, in sidoo kale aan dadka ku adkaanin. mar walba markuu boqorka noqdana waxaa la dhahay waxaa ku arkay inaad tahay qof wanaagsan. markuu xaalad walba adkaad ku jirna waxaa la dhahay waxaa ku arkay inaad tahay qof wanaagsan. macnaha mar walba inaa wanaagsanaan. markuu walaaladiis la kulmay uu karaameeyey, xataa markii ay ka calaacaleen oo ka shalaayeen waxay sameeyeen, wuxuu dhahay maanta wax calaana dushiina ma saaran. marka in dhaqan wanaaga iyo wax walba cashiro weyn uu na siiyey nabi yuusuf calayhi salaam. cashirkaas ayaan ka baranaa qisooyinka nolosheena in aan dhiirigelin inaan ka qaadano. asalaamu calaykum, jazaakum allahu khayr, baaraka allahu fiikum. nabaadiina.